khatarta dembiga uu leeyahay oo la u geysanayo jirka bini'aadamka. suntu say u kala daran tahay ayay jirka u dhibtaa, dembiguna sow u kala daran yahay ayuu qalbiga u dhibaa. adduunka iyo aakhirada shar kama dhacdo ilaa waxaa u sabab ah dunuubta iyo macaasida. sababta loogu soo saaray nebi aadan jannadu maxay tahay? waa dembi la galay sababtii. sababta ibliis loogu soo eriyey samaawaadka asagoo la noolaa malaa'ikatu raxmaan waxay tahay? waa dembi la galay sababtii. ibliis marka uu dembi sameeyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkii iyo wanaagii uu sameynayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu bedelay qubxi ayaa loogu bedelay. dhawaantii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaa waxaa loogu bedelay bucdi ayaa loogu bedelay. naxariistii alle uu ku dhex jiray lacnad ayaa loogu bedelay. quruxdii iyo jamaalkii qubxi iyo foolxumo ayaa loogu bedelay. iimaankiina waxaa loogu bedelay kufri iyo gaalnimo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu halaagay qowmi nuux. ilaah wuxuu ku halaagay biyo ilaa ay biyuhu buuraha midda kuwa ugu dhaadheer ka sara mareen. qowmu caad. waxaa rabbi ku halaagay dabayl lagu salliday. qowmu thamuud. qaylo ayaa lagu diray. iyo qowmu luut. daarihii ay degganaayeen ayaa la dabagediyey. halkaas waxaad ka garatay dhibaatada uu dembigu iska leeyahay inay tahay mid aadoway. macsiyadu markay ummad ka soo dhex daahirto, rabbi cadaab ayuu ummaddaas ku camimaa. xataa dad suuban hadday ku jiraan, musiibo weyn ayaa ummaddaas ku dhacda. muslimiintu rabbi ha ka baqeen, diinta islaamkana dhab ha loogu dadaalo. waxaa musnadka ku sugan rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu ku yidhi xadiid saxiixa: lamaa curija bi marartu biqawmin lahum adfaarun min nuxaas yakmisuuna biha wujuuhahum wa sukuurahum. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, kolkii lay korsiiyey waxaan soo maray goon leh cidiyo maar ah oo wejigooda iyo xabadkooda ku hoolaya oo dhib fara badan oo ka muuqanayo. waxaan idhi buu yidhi, man haaulaa'i yaa jibriil, war jibriilow kuwaanu yeeyihiin? rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, jibriil wuxuu igu yidhi, haaulaa'i aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim. kuwaasu waa kuwa dadka hilibkiisa cunaya oo sharafta dadka iyo nasabka dadka wax ka sheegaya oo ummadda dhibaya oo carabkooda ku xamanaya oo dadka xaqiraya. sidaas ayaa loo gelayaa qabriga. haddii sidaa laysku cadaabayo dembiga adduunka, maxaad malaysanaysaa inay kugu imaanayaan?